kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal soo dhawaada waxaanu idin soo gudbin doonaa ciidamadii ugu faraha badnaa oo ka goostay Somaliland una galay waqooyi bari Soomaaliya xubno kale oo muhiim ah oo ka mid yahay Mahad Cambaashe ayaa la filayaa in ay ku biiraan waqooyi bari ee Soomaaliya haddaba sarkaalka hogaaminaya ciidamadan waxaanu idin soo gudbin doonaa hadal la yaab leh oo uu jeediyay markii lagu soo dhaweeyay deegaanka Fiqi Fuliye qodobadaas oo faahfaahsan ayaanu idin soo gudbin doonaa daawadayaal balse marka waa soo dhawow muuqaalka la igre siri shirkada si dad badan ay xogteena ogaado waxgaaga ninkan aad aragtaan waa sarkaal ka mid ahaa ciidamada militariga Somaliland waxaa lagu magacaabaa Cali Ashkato isaga oo ku sugan deegaanka Yubbe ayuu wuxuu ku dhawaaqay inuu ka baxay Somaliland kuna biiray waqooyi bari ee Soomaaliya haddaba taliyahan oo watay ilaa 10 askari oo ku hubeysan qoryaha fudud iyo hal gaari oo qori saaran yahay ayaa waxa uu u galay maamulka waqooyi bari waxaa lagu soo dhaweeyay deegaanka Fiqi Fuliye halkaas waxaa ku soo dhaweeyay wasiirka amniga maamulka waqooyi bari iyo xubno kale oo muhiim ah wuxuuna hoosta ka xariiqay wasiirka amniga waqooyi bari oo sheegay in bishan August ay u tahay bil guulo badan ay gaareen maamulkooda maamulka Cabduqaadir oo Cali Firdhiye waqooyi bari wuxuu mudooyinka dambe bilaabay qorshe la yaab leh oo ah in la kala furfuro ciidamada iyo saraakiisha Somaliland talaabada iyaga ku horeeyay balse waxaa mudaa in markan iyagana ay wadadoodii oo kala qaadeen haddaba waxaanu idin soo gudbin doonaa hadalka uu jeediyay Cornel Cali Ashkato oo ka goostay Somaliland kuna biiray waqooyi bari ila daawada muuqaalkiisa dareenkoodina ay si toos ah u kasbadeen wasiiradii iyo xildhibaanadii la soo magacaabay oo ay kaga awood bateen nimankii wasiirada ahaa ee u shaqaynayay Hargeysa oo ay dadkii dhammaan qulubtoodii jiiteen maadaamaan taliyay ahay waxaan go'aan qaatay dareenka dadkayga inta anoo metela inaan raaco oo ku shaqeeyo dareenkooda si shuruud la'aana ulana soo xidhiidhay ciidamada iyo saraakiisha waqooyi bari federaalka wasiiradayda kaga guulaystay maamul diidka aniga oo ah Cornel Cali Axmed Ismaaciil oo ay wada garanaysaan waxaan aad iyo aad u hambalyaynayaa suldaankaygii guud Suldaan Axmed Bashiir oo 30kii August si toosa u taageeray maamulka waqooyi bari dadkaygiina ay raaceen dareenkiisii iyo kaygii dadkaygii aan ka imi ee aan ku noqonayo waxaan leeyahay dareenkiinnii aan raacay waa inaad sii labalaabtaan calamadii aad sidateen waa inay labalaabmaan soo dhowayntii maadaama aanay taliyihiinnii raacay dareenkiinnii iyo nidaamkii aad samaysateen waxaan kale oo mar labaad iyo mar saddexaad u mahad celinaya xildhibaanadayda wasiirada kaga adkaaday maamuladii kale waqooyi bari kana kasbaday dadkii ciidamadii ka kaxaystay aniga iyo ciidankaygii waxaan ku sugannahay saacaddan degmada Fiqi Fuliye waxaan si aad iyo aad u dhaleecaynaynaa googoynta iyo qoqobka dalka Soomaaliya oo u daatay dhiig fara badan baanu leenahay war dadka qoqobaya waa ka soo horjeednaa mana raacsanin inta u shaqaynaysana way iga daba imanayaan waayo anigu waxaan way ceelal iyo horbaxan iyo ragna waa iga soo horeeyay inta dambe oo ila dareenka ee ku jirta gudaha Somaliland ee taageertay ila shaqaynaysay soo socota waxaan leeyahay Allah ha idin soo badbaadiso anigaan hebel iyo hebel halka ka oranaynin soo badbaada waan leeyahay sidaa la ii soo dhaweeyay si ka daran baa la ii soo dhaweynayaa dareenka dadka aad iyo aad ayaan uga mahad celinayaa iyo shucuurtooda ciidamadaydii way marayaan fadhiga inta ku suganna waa diyaar hambalyaan leenahay ee soo anbixiyay haddana gaadiidkaygii waa aragtaan ciidankaygii waa aragtaan waxaan leenahay war indhaadhaama dadkayga reer waqooyi bari guul waxaan ballan qaadaynaa
inaannu gaadhsiinno maamulka badda haddana ay naga taageersanyihin oo ciidamada iyadu joogaan waxaan ballan qaadaynaa inaannu ka dhaadhicinno waddadaa waxaannu ballan qaadaynaa gobolka Sanaag inta ka dhiman inaannu la shaqayno wasiirrada saraakiisha annagu horkici doonno ciidamada gaadhsiinna doonno ilaahayna nagu guulaynayo oo aannu xaq u taagannahay ee ka caddaynaynaa taallada shahaadada sulfuri aad baan idiin salaamay عدك كله ويرغب عدك كله غاز بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa korneyl cali ismaaciil taliyihii yubbe ee ciidanka militariga Soomaaliland soo dhawow cali axmed ismaaciil iyadoo dadkaagu ku jecel yahay waqooyi bari ilaa Soomaaliya halkan waxaa oganaya dawladdii waqooyi bari iyo tii Soomaaliya labadu waa joogan saraakiishii waxaanu soo dhaweynaynaa ciidanka Axmed Cali Ismaaciil iyo taliyaha ka yimid aad u mahadsan waana soo dhaweynaynaa waxaanu kaloo idiin sheegaynaa ciidanka Soomaaliya kortuu joogo waa isku mid wax uu kala duwan yahay ma jirto aan ahayn ciidanka gobolka kaasina waa ciidan Soomaaliyeed yaan la isu sheegin waxaan jirin waa ciidan la xukumi doono lagana xukumi doono waqooyi bari iyo Soomaaliya waxaanu soo dhaweynaynaa nin kasta oo ciidanka Soomaaliland ka mid ah ama askari ha noqdo ama sarkaal ha noqdo waa askari Soomaaliyeed hadduu askari yahay hadduu sarkaal yahayna waa sarkaal Soomaaliyeed caadifad inaguma jirto aad iyo aad baanu u soo dhaweynaynaa siday tahay baanu u soo dhaweynaynaa kuwa ka dambeeya ee soo socdana waanu soo dhaweyn doonaa taasi intaa weyn cali axmed ismaaciil waxaad joogtaa dalkaagii iyo dadkaagii oo aad la dareen noqotay aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay inta kaa dambaysana sidaa iyo si ka qiimo badan baanu u soo dhaweynaa waanu kula shaqayn doonaa waadna nala shaqayn doontaa maamulka aad ku soo birtay waqooyi bari waa ilaa Soomaaliya ma aha waqooyi bari keliya saraakiisha Soomaaliya taagan aad iyo aad baad u mahadsantihiin dadweynuhu qorraxda wuxuu u tulan yahay soo dhaweynta korneyl axmed ismaaciil qaabka waanu u soo dhaweynayno jacaylka iyo muxubbada loo qabo keligii maaha waa ilaa iyo inta ka dambaysa wey aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan uga baxayaa saraakiisha soo dhawow sidaa gamca furan ugu soo dhawow saacaddan laga bilaabana isku mid baynu allahu akbar haddii lahaa ugu horreys soo dhaweynaynaa sarkaalka iyo ciidankiisa iyo dhammaan ciddii isaga la dareen marka labaad waxaan u sheegaynaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ha joogto adduunka maanta waa maalin farxadeed oo ku saabsan qaabka uu u shaqeeyey taliyaha ciidanka Yubbe ee ku soo biiray dareenka dadkiisa waqooyi bari Soomaaliya halka kan waxa taagan oo maanta uu kulansaday saraakiishii iyo wasiirradii iyo waqooyi bari iyo Soomaaliya sarkaalka dhinacayga taagani waa sarkaal ka soconaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya waxaan u sheegaynaa dhammaan asxaabta ka dambaysa ee markii hore la dareenka ahayd inay dareenkooda wax ka bedelaan oo gooni goosata iyo ciddii Soomaali wax yeelayso iyo ciddii Soomaali aan la dareen noqon ay maru dawoobaan qaataan caafimaadka Soomaaliya ay raadinayso waxaan u sheegaynaa bulshooyinka Soomaaliyeed in cid kasta oo hadda ka maqan Soomaalinimada
markii hore lagu midaysnaa oo dadka lagu ahaa in ay ka qaataan qaybta iyo doorka ay ku leeyihiin dhismaha midnimada Soomaaliyeed intaa wixii ka baxsan ninkii wadaa waa nin u shaqaynaya cadowga Soomaaliyeed midkaa hal ogaado waxaan u sheegnay cadowga Soomaaliyeed muddo badan oo ay burbur kula jireen dalkayaga in aan u soconno sidii aan uga badbaadin lahayn u midayn lahayn dadkayaga qarankayaga u difaacan lahayn waxaan u taagannahay qorraxda in aanu helno nidaamkii aan awalba wadnay ee ku saabsanaa difaaca ummadayada iyo dalkayaga oo aanu kaga samata bixinanay cid allaale ciddii dhagar ku haysa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu